dowladda Itoobiya ayaa laga sugayaa go'aan ku saabsan in shidaalka dalkeeda laga soo dejiyo dekedda magaalada Berbera ee Somaliland kadib markii ay caqabado kala duwan ay soo food saareen shidaalkii uga soo degi jiray dalka Jamhuuriyadda Djibouti sabab la xiriira hay'adaha kaydka shidaalka ee dalka Djibouti sida uu sheegayo agaasimaha cilmi baarista iyo wax soo saarka ee hay'adda shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay in ay doonayso inay dekedda Berbera u soo wareejiso qayb ka mid ah shidaalkii u mari jiray Djibouti oo ay ka dhalatay arrimo la xiriira qaybinta iyo awoodda adeegga kaydka shidaalka ee Horizon loo yaqaano ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti kaydka Horizon ayaa lagu arkay hoos u dhac ku yimi awoodda adeeggeeda taas oo keentay in khalkhal ku yimaado silsilada sahayda shidaalka ee tagta dalka Itoobiya Atole Mesa oo ah agaasimaha waaxda cilmi baarista iyo waliba suuqgeynta ee hay'adda shidaalka ee dalka Itoobiya oo u waramayay wakaalada wararka ee lagu magacaabo Addis Ababa Insight ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in hoos u dhacaasi ku yimi hamaha kaydka shidaalka ee Djibouti ee loo yaqaan Horizon in ay doonayaan in ay helaan bedel kale si aanay taasi u saameyn shidaalka dalka Itoobiya taga ee soo mara Jamhuuriyadda Djibouti dekedaheeda dawladdu dhib kuma qabto iibsashada shidaalka ayuu yiri Mr. Lamesa waxaanu intaasi ku daray in hamaha kaydka ee Horizon aan dayactir lagu sameeynin tan iyo markii la aasaasay 18 sanadood ka hor waxaanu sheegay inay taasi keenayso in xadidnaan dhinaca shidaalka ay saameyn ku yeelato dalka Itoobiya waxaanu sheegay dayactirka aan lagu sameeynin muddada waqtiga dheer ah hamaha kaydka ee Horizon loo yaqaan ee Djibouti ay taasi sahashay in shidaalkii tagi lahaa Itoobiya uu yaraado Itoobiya waxa ay u baahan tahay ku dhawaad 10 milyan oo litir oo nafta ah maalintii si kastaba ahaatee shixnadaha dhinaca shidaalka ee Djibouti uga yimaada ayaa yaraaday iyadoo maalintii la sii daayo ama ay gaaraan dhinaca Itoobiya shidaal gaaraya ilaa 8 milyan oo litir oo kaliya taas oo saameyn ku yeelatay adeegyada kala duwan ee dalka Itoobiya Mr. Lamesa waxa uu carabka ku adkeeyay in laga maarmaan tahay in la helo ama la sahmiyo dekada kale si looga gudbo caqabadaha dhinaca shidaalka Itoobiya haysta waxaana sheegeen in ay mudnaantu tahay dekedda magaalada Berbera halkaas oo uu xusay in hamaha shidaalka ee kaydkoodu ay yihiin kuwa la isku haleyn karo waxa uu xusay agaasimaha cilmi baarista suuqgeynta iyo wax soo saarka ee hay'adda shidaalka ee dalka Itoobiya in ay muhiim tahay in la sahmiyo dekada kale waxaanu xusay in dekedda Berbera ay muhiim u tahay isla markaasina ay qaybo ka mid ah shidaalkooda loo baahan yahay in loo wareejiyo dhinaca dekedda Berbera dekedda Berbera waxa loo aqoonsaday in ay leedahay adeegyo ku filan waxaana talo ku saabsan arintan iyo ka faa'iideysigeeda in dawladda Itoobiya ay dekedda Berbera kala soo degto shidaalka aanu gudbinay dawladda taasina imika go'aan ayaa laga sugaya oo laga fiirsanaya ayuu yiri agaasimahan Lamesa si kastaba ahaatee Mr. Lamesa waxa uu xusay hadii aan xal degdeg loo helin dhinaca shidaal yaraanta dalka Itoobiya ee ay sababtay hoos u dhaca ku yimi hamaha kaydka shidaalka ee Jamhuuriyadda Djibouti taasi in ay noqon karto mid saameyn kala duwan ku yeelata dhinaca adeegyada bulshada iyo waliba guud ahaan dalkaasi waxaanu xusay in loo baahan yahay in dawladdu ay go'aan degdeg ka gaadho sidii ay u heli lahayd bedel kale ama meel kale oo qayb ka mid ah shidaalka u soo dega ay u wareejiso si looga baxo shidaal yaraanta ama hoos u dhaca ku yimi shidaalka Itoobiya gaari jiray ee dhinaca Jamhuuriyadda Djibouti ka iman jiray usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas